waa qiso ku dhacday wiil dhalinyaro ah ee Soomaaliyeed qalad uu asagu sameeyay inuu nafsadiisa isku cinqaabay. Xaqiiqatan waxaan hubaa wiil kasta ama gabar kasta oo dhalinyaro ah oo rabta inay guursato oo hami guurka kale qisadan marka ay dhageystaan inay cilmi kala dhex bixi doonaan. Siiba waxa aan la hadlayaa ayaa waxay tahay wiilasha maadaama gabdhaha la guursanayo waajibaadkuna uu ragga uu saaran yahay. qisadani waa qiso cajiib ah marka aad dhageysatana xaqiiqatan aad u riyaaqaysid. Waxa dhacday hadda ka hor wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo waliba hadda waqti xaadirkan hadda la taagan yahay casriga ah aroosyada siday u dhacaan ka warqabnaa. Ayaa wuxuu aroosay gabar markii uu la aqal galay ee toddobadii oo ka baxay waxa dhacday inuu safar aaday. Markii uu safarka aaday muddo 2 asbuuc ah ayuu ku maqnaay wuu soo laabtay safarkii wuxuu u soo laabtay xaafadiisii oo reerkii uu dhawaan u dhisay. Markuu u soo laabtay reerkii uu dhawaan dhisay wiilkii waxa dhacday gurigiisii uu ka qubaystay galabtii wuxuu aaday dhalinyaradii iyo cafeteria iyo meelihii dhalinyarada kula shaaxi jiray aaday. Markii dhalinyaradii uu aaday waxa dhacday dhalinyaradii way salaameen way u marxabeeyeen waa la islaamay waa la fadhiistay shaaxa la wada dalbaday si fiican baa loo sheekaystay. Marka sheekadii hadba sidii salaantii la isku dhaafsanayay waxay soo dhex gashay xaaskii oo wiilka u guursaday. wiilkii gabadha guursaday waxa dhacday in saaxiibkiisu ku soo hadal qaaday inuu dhahay habeenka arooskayga saan u maleynaa waa joogtay niyo wuxuu dhahay aniga dhalinyarada xaafadda igu casuutay aniga kama aan warqabin markan arooskaada maqleena horaa baan ka soo aaday laakiin wuxuu dhahay habeenkaas waxa jirto dhahay gabadha aad guursatay soo gabadhii cadeeda quruxda badneed oo habeenkaas taariikhda soo sidaas ma ahayn. Okay markuu sidii dhahay waxa dhacday wuxuu dhahay gabadhaasi halkaas ay waxay ku leedahay bar. markii bartii uu u sheegay ninkii wuu xanaaqay su'aalo u isweydiiyay. marka wuxuu dhahay raga naagaha waxmay naagna kula dagaalin bal ninka ragga ah waxa uu sheegaya soo xaqiiqsi intuu isdhahayay gabadhii u tagay markii oo qoorteeda uu saan dhahay bartii oo ku taala ayuu arkay calaamadii uu u sheegay ninkii ayuu arkay. waayaa marka waxa dhacday markii bartii uu arkay gabadhii waxa dhacday inuu meesha ku furo. gabadhii markuu meeshii ku dalaaqay ee dadkii ehelka iskugu soo baxeen ee gabadhii ciideeda ku wareejiyay muddo asbuuc ka bacdi dhalinyaradii cafeteria kula cabay u soo laabtay. wuxuu dhahay dhalinyaradii markii la wada sheekaystay shaax la wada cabay waxa la dhahay ka waran xaafadii sidee lagu yahay. wuxuu dhahay aniga reerkii iyo gurigii marran ku kala tagnay waaba kala yaacnay waxa way gabadhii waa furay arrin amaali dhaweyti ii sheegtay oo aan ku arkay waa shaki baa ay galay maadaama nin shaki galayna aan noqday gabadhii waa fasaxay u dhahay. wiilkii dhalinyarada ahay ee markaas ay saaxiibada isla wada ahayeen oo salaantu ay ka dhaxaysay oo galabtii oo meerada soo fadhiistay oo ay wada ballansanaayeen oo meeshii la wada fadhiyay ugu sheekeeyay wuxuu ugu yiri qalad adi aan sameeyay isku cinqaabtay. wuxuu yiri qaladka ani aan sameeyay aan isku ciqaabay waa maxay. wuxuu dhahay habeenkii arooskaadu dhacayay arooska aad dhiganaysay intaada gabadhaani aada furin oo aan ku dhahayay gabadhaada bartaada halkaas ay ku leedahay aan ku dhahayay aniga qaladka ma aan lahayn qaladka adiga ayaa lahay oo habeenkaas waxa jirtay gabadha arooska inay timaha iyo madaxa waxa dhan ay u qaabsanayeen. ala kulli xaal markii arintii loo sheegay madaxii gabadhii aa qaawiday oo ilaa ay dharka qafiifka watay ayaa waxay ii sahashay inaan qoorteeda arko dhahay. waxa dhacday wiilkii uu isku yaxyaxay wuxuu ogaaday inuu ku fududaaday furiinka. marka qisadu waxyaabaha ay ka hadlayso waa dareemi kartaa ee dhammaan wacyiga hadda jira ama gabdhaha la aroosaya ama dhalinyarada is aroosaysa waxa ku badan ka tigitaanka marka uu aroosku dhacayo diinta islaamka in la dhaafo xadigeedii. waxaad arkaysaa gabdho timihii wada qaabsanaya hadda waxayba noqotaba lifestyle-ka caadiga ka mid noqotay caadiga noqotaba. laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay adigoo wiil Soomaaliyeed ah haddana muslim ah
haddana dhaqan leh ka waran gabadha madaxeeda soo qaawisay ee ku ogolaatay ee ku dhahday madaxayga waa qaawinaa xilliga arooska ma waxaad jeceshahay lacag iyo aroos iyo qarash inaad ku bixid aniga waxaan ku leeyahay aragtideeda markaan ka hadlo aniga markaan iska hadlo maya ilaahay meel kale ha kaa siiyo ilaahayna kuwa baariyaala dhammaanteen haddaan nahay dhalinyaro allahana wada siiyo ayaan leeyahay midda xigta wiil kastoo dhalinyaro ah soo kaca ama gabar kastoo dhalinyaro ah soo kaca guurka way ku haminaysaa laakiin waxaa la rabaa qofka aad guursanaysid inaad aragti dheer u yeelatid qofkuu yahay noocuu yahay hana noqon qof inta badan ku ciyaaray gabdhaha inaad ka fogaato isku day arrinkaas gabadha waa guursan kartaa waa kala tegi kartaan sax laakiin waxaa la rabaa qaladaadkaaga inaad wax ka baratid hadda wiilkan gabadhii oo furay qaladkiisa wax ka bartay dib dambana uma dhici doonto gabar oo guursan doono inuu madaxa ata ka qaawiyo oo dhaho alla ilaahe gabar heblaayo waa shidan tahay adna waa shidan tahay waa waxyaabo dhalinyaro badan markii ay isguursadeen ay ku wada qarimeen oo ay dhacda reerahooda inay ka burburaan marka waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee waliba isticmaasho baraha bulshada siiba gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaa hab dhaqanka hadda ay ka wadaan baraha bulshada siiba aaladda TikTok waxaan dhihi karaa ma ahan dhaqan wanaagsan waa gabdho walaalaheen ah oo aan jecelnahay wayna dhaleen haddana waa kuwa aan guursanayno wayna la dhasheen ma jeclin inaan ku xadgudubno oo aan cayno laakiin waxaan leenahay walaashay waxaa tahay gabar aan jecelnahay oo meeshan ku jirta xitaa jirkaada hababka u muujinaysid inaad ka taxadartid aaladan social media waa la isticmaalaa habab wanaagsan ayaa sida hadda wax u soo gudbisid si ka duwan oo ka fiican ayaa wax u soo gudbin kartaa marka waxaan rabaa inaan u sheego hablaha soo koraya ee dhalinyarada ay aniga camal ah in saaxada baraha bulshada inaysan ku qaldamin in dhaqamada reer galbeedka aysan ku qaldamin ay ku dheganaadaan dhaqankooda iyo diintooda iyo sidoo kale ay ilaaliyaan talooyinka uga imaanaya dadka walaalahooda ah dadka dariska ah dadka ku dhow waxaan baryahan la soconaa qofka oo waliba Soomaalida ku soo batay haddii qof lala taliyo oo la yiraahdo taladan qaado mudambu wataa imaaneys marka daawadayaal waxaan kaa codsanayaa haddii aad ku cusub tahay meeshan isku day inaad subscribe saaratid oo aad nala socotid sheekada si aad kula wadaagno